hadda waxaanu ku sugannahay afaafka hore hoolka ay ka socoto shaacinta ururka ka oo ah urur uu shaaciyay siyaasigii weynaa siyaasi maxamuud xaashi hadda waxa garabkayga taagan kabtan jawaan soo dhawow oo bulsha TV ku soo dhawow waxaan taagannahay afaafka hore xafladda urur siyaasadeedka ka bal ka waran jooga xafladdan ila fi formation about that aad baad u bahadsantahay waa fahmay dhammaan warkaaga maanta waxaanu joognaa xafladda daafurka urur siyaasadeedka ka xaflad wasifi loo soo qaban qaabiyay weeye xaflad si wacan looga soo shaqeeyay weeye anigu ninkan xaashi la yiraahdo diyaar kulmiya ku tirinay sida runtii berigi hore waa kuwa la yar kala carooday laakiin ninka ay xaashi waa balaayo ma oran markuu kulmiya waa ka baxay waxa dadku aadanayo qaar kale iyo mucaarad wax dhabarka soo taabanay waliga afkiisa laga maqal kulmiya waa ka baxay imikada lafteedana isagoo urur furtay laga maqli maayo waa ka baxay kulmiya marka ninkan waa ninka ugu khatarsan siyaasiyiinta waayo kelmad baabu iska ilaalay markiiba asxaabtu way xanaaqda oo dadkeena wax lagu yaqaan siyaasiyiinta inuu markiiba wax qalbigiisa ku jira dibadda soo bandhigo laakiin xaashi waa ninkan weligii hore waa ka baxay kulmiye iyadoo beri la maagay iyadoo afayeenka kulmiye si xul la hadlay iyadoo xubinnimadii la laga qaaday isagu markuu waa ka baxay waayo siyaasinimada ku faraysaba inaan qofku markiisa horeba la wada arag maanta la ururkiisa waa soo dhaweynaynaa haddaanu nahay dadka siyaasiyiinta reer Soomaaliland joogta haddaanu nahay dadka ururada ku dhawaaqay waad ogtay anigu urur baan ku dhawaaqay ururkayagu waa soo baxaya madaxweynahaanu kala hadalay asxaabta mucaaradka baanu kala hadalay inuu ururkayaga shaqayn doono inuu wax jira yahay ururkayagu bulshadu ku dhex jira waa urur siyaasadeed inuu xisbiisu bedelana waa baan rajaynaynaa insha Allah bismillaahi kariim marka urur siyaasadeedka aad sheegayso magaciisa maxaa la yiraahdaa urur siyaasadeedka lama magac buu leeyahay mar waxa la udan oo dadka oo dhan buu udan yahay laakiin markuu xanaaqo waa udar baa la yiraahdaa markuu xanaaqo wayahay hadda waxa socota xafladda shaacinta urur siyaasadeedka ka xaaladda siyaasadeed dalka weyn ka warhaynaa oo wada hadalka u socday mucaaradka iyo maxaafidka mucaaradku waxay sheegeen in bilaanatijo ku soo dhamaaday haddana waxa socota shaacinta ururkan oo ku soo beegmay xilli adag waa maxay fariinta u dirayso asxaabta mucaaradka war inaad yaraano asxaabta mucaaradka iyo maxaafidiinta iyo madaxweynuhu ku jiro waxa leeyahay dalka siyaasadiisa hala dajiyo dadka shacabkana waxa leeyahay war marka isleeyahay waxba walaaqmay baa hagaagtaaba waxa laga yaabaa in dhanka ka hilaacdaba ee istaajiyay ka laftiinu mucaaradka iyo maxaafidka waxa leeyahay labadaba hal isku dulqaato waayo urur siyaasadeedaan nahay anagu xisbiye ma nihin inaanu soo baxnaa